dhaqaale ayaad ka sameynaysaa adigu iska hurdo. waa shaqooyinka ama shaqooyinka doctor-ka ama side hustle-ka loo yaqaano oo kaliya aad ku soo publish gareynayso. wax lacag kaama baxayo, hal senti kaama baxayo, buug ma iibinaysid, waxna ma keenaysid, store ma lihid, waxna ma publish gareynaysid, kaliya buugga ayaa naqshadaynaya. Coloring bookska oo ah buugaagta midabeynta caruurta loogu talagalay oo anagu aan ku iibino oo storekeena Qalin Store oo markaasi uu ku iibiyo oo ah storeki ugu horeeyay ee Soomaaliya ee markaasi buugaagtan midabeynta caruurta kusoo baahiya bogga Amazon. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan. waxaa idin rajeynaa inay maalin qurux badan idin tahay. maalmo ka hor waxaan barteeda YouTube-ka aan kusoo baahiyay post aan dhalinyarada ku weydiinayay in ay u kala codeeyaan laba ciwaan. labadaasi ciwaan oo kala ahaa Amazon KDP iyo Print on Demand. dhalinyarada boqolkiiba 83 waxay u codeeyeen inaan muuqaal ama ciwaan aan kasoo sameeyo Amazon KDP oo maanta muuqaalkeena aan kaga hadli doono waxa la yiraahdo Amazon KDP. waxaan kusoo qaadanaynaa 3 qodob. 3daas qodob oo aan si faahfaahsan aan kugu sharaxi doono inta muuqaalku socdo. qodob koowaad waa maxay Amazon KDP. waxaan qeexi doonaa waxa la yiraahdo Amazon KDP. qodobka labaad waa sidee ayuu u shaqeeyaa Amazon KDP-ga, sidee ayuu u shaqeeyaa. iyo qodobka saddexaad oo ah qofka raba inuu buugaag ku dhex iibiyo Amazon shuruudaha lagaga baahan yahay maxay yihiin. 3da qodob iyo qodobka ugu dambeeyo oo storekeena ayaan kugula wadaagi doonaa. haddii aad danaynaysid ila joog daqiiqadaha soo socdo, si kooban oo faahfaahsan ayaan kugu soo koobi doonaa. hagaag saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan mar kale. qodobka koowaad haddii aan balqeexno waxa la yiraahdo waa maxay Amazon waa maxay Amazon KDP. waxaad isweydiinaysaa amaba ay tahay markaadii kuugu horeysay aad maqasho Amazon KDP. haddii aan qeexno waxa la yiraahdo Amazon KDP, Amazon KDP waxa laga soo gaabiyey Amazon Kindle Direct Publishing ayaa laga soo gaabiyey. waa adeeg ay bixiso shirkadda Amazon oo u ogolaanaya dadka in ay buugaag markaasi iyagu ay naqshadeeyeen ama buugaag ay qoreen ee markaasi ay soo geliyaan bogga Amazon, kadibna sidaasi ay Amazon daabacada ugu sameysay iyagoona markaasi aanan buugaagta daabacaynin, store aan lahayn, gurigooda aan waxba awlin, ay kaliya ay soo bandhigayaan buugaagtaasi iyagoo markaa digital ah oo ay ku soo baahinayaan bogga Amazon. kadib markii intaa ay sameeyaan waxaa la wareegaysaa Amazon ayaa la wareegaysa oo ah sidee ayuu u shaqeeyaa. Amazon markii ay la wareegto adiga waxa ugu horeeya lagaaga baahan yahay waa inaad buug qortaa. buuggaas aad qoraysid ama aad naqshadeynaysid uu noqdaa buugaag markaasi shuruudaha Amazon KDP u gashahay in markaasi ay daabacdo ama print ay ku sameyso. markaad buugga diyaariso waxaad u sameynaysaa cover ayaad u sameynaysaa oo ah daboolka kore ama jaldiga kore ayaad u sameynaysaa, ama ha noqdo mid paperback ah ama ha noqdo mid digital ama e-bookska loo yaqaano iyo weliba midka loo yaqaano paperback iyo maaragtay hard coverka. 3daas ayaa maaragtay aad u sameyn kartaa. markaad intaas sameyso waxaad soo gelinaysaa Amazon ayaad soo gelinaysaa. Amazon markaad soo geliso oo weliba koontadaada Amazon KDP-ga aad soo geliso, iyaga ayaa markaasi la wareegaya oo waxay ku sameynayaan review ayay ku sameynayaan. reviewgaasi marka ay shuruudihii uu buuxiyo buuggaasi oo ay markaa yaqiinsadaan ama ay aqbalaan in buuggan uu shuruudaha buuxiyey, ayay waxay sameynayaan inay markaasi buuggaasi ay live ka dhigaan oo markaa laga heli karo dhammaan Amazon oo dhan laga heli karo, website-yada Amazon oo dhan markaa laga heli karo. kadib adiga waxaad jaangoynaysaa oo aad maaragtay aad qoraysaa lacagta aad doonaysid markaa inaad buuggaas aad ku iibisid. buugga markaa lacagta aad u jaangoysid ayaga waxay qaadanayaan wax la yiraahdo commission ayay qaadanayaan. waxay qaadanayaan daabacadda, sidoo kale waxay qaadanayaan packagingka iyo deliveryga ayay qaadanayaan ilaa iyo customerka ay kaga geynayaan. mas-uuliyadda waxaa iskale Amazon ayaa qaadayso. adiga waxaad daabacaysa ma jirto, waxaad ship garaynaysa ma jirto, wax markaasi aad customer aad u dirayso ma jirto. ayaga ayaa hawsha la wareegayo, kaliya adiga buuggaas ayaad soo baahinaysaa. markaad buuggaas soo baahiso
oo aad lacagtii qiimaha aad ku rabtay aad geliso, adigana waxay ku siinayaan waxa la yiraahdo loyalty. Loyalty-gaasi waa lacagta markaasi faa'iidada ku ah oo markaa aad ka heshay buugaagtaasi haddii markaa ay dadku ay iibsadaan ama xayeysiin aad geliso ama markaa adiga aad Facebookga ama TikTokga aad ku xayeyso, kadibna sidaasi loyalty-ga ay ku siiyaan. Marka maxaa looga baahan yahay marka shuruudaha qofka lagaga baahan yahay muxuu yahay haddii uu rabo in uu Amazon KDP uu buugaag ku soo baahiyo? Shuruudda koowaad waa in marka hore uu iska diiwaan geliyaa bogga Amazon KDP oo account uu ka samaystaa. Account-kaasi marka uu ka samaysto waa in uu xogtiisa shakhsiyadeed uu geliyaa sida telefoonkiisa, emailkiisa, magaca dukaanka ama magaca gaarka ee qofkaas uu rabo inuu u isticmaalo ee dukaankiisaasi storeka oo markaa Amazon uu ku dhex leeyahay. Kadibna aad ku xirtid bank account iyo address gurigaaga oo markaa laga heli karo ama markaa ama wadamadan kaleba qof jooga addresskiisa inaad markaasi aad ku xirato, iyo bangiga oo markaasi kan ah ugu muhiimsan oo lacagta markaa faa'iidada ay kugu soo dhacayso. Markaad intaas samayso waxaa kaloo lagaaga baahan yahay in aad buugaag naqshadayso. Buugaagtaas aad naqshadaynaysidne waa buugaag kala duwan oo markaasi noqon kara sheeko caruureedka, noqon kara sheekooyinka cabsi-cabsida, noqon kara buugaagta markaasi fitnesska ama nutritionka ama cuntada buugaagta laga qoray noqon kara. Sidoo kale storeka waxyaabaha aad ku iibi karto waxaa ka mid ah buugaagta la yiraahdo coloring bookska oo ah buugaagta midabeynta caruurta loogu talagalay oo aan ku iibino oo storekeena Qalin Store uu markaasi uu ku iibiyo oo ah storekii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee markaasi buugaagtan midabeynta caruurta ku soo baahiya bogga Amazon. Sidoo kale buugaagta lagu iibi karo waxaa ka mid ah buugaagta journalinka, buugaagta plannerka ama weeklyga ama monthly plannerka, iyo buugaag kaloo markaasi ay aqbalayaan oo Amazon KDP markaa ay publish garaynayso. Markay publish garaysane ay customerkii gacantiisa ay ku samayso, adigana aad dhaqaale sidaa kaga samaynayso. Marka Amazon KDP-ga sidaa ayuu u shaqeeyaa. Haddii aad danaynaysid inaad ka ogaatid amaba aad rabtid qaabka loo sameeyo naqshadda, qaabka aan u sameyno buugaagta midabeynta caruurta, qaabka aan u sameyno buugaagta jadwalada, qaabka aan ugu daabacno boggeena ama accountkeena Amazon KDP, waxaad faallada hoose igula wadaagtaa in muuqaalkaas aad danaynaysid. Waxaa kasoo sameyn doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo muuqaal kooban oo sida kan oo kale ah ayaa inooga soo sameyn doonaa oo aad u fudud oo aad si dhab ah oo aad si caadi ah oo fudud aad ku fahmi kartid, waxna aad ka faa'iidi kartid, adigana markaasi aad buugaagtaada ku soo baahi kartid Amazon, dhaqaalena aad ka samayn kartid. Dhaqaale ayaad ka samaynaysaa adigoo iska hurdo. Waa shaqooyinka doctor-tuurka ama side hustle-ka loo yaqaano oo keliya aad ku soo publish garaynayso. Wax lacag kaama baxayo, hal senti kaama baxayo, buug ma iibinaysid, waxna ma keenaysid, store ma lihid, waxna ma publish garaynaysid, keliya buugga ayaa naqshadaynaysaa ama buugga ayaad qoraysaa. Marka haddii aad danaynaysid qaybta faallada igula wadaag, muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa oo aan kugu faahfaahin doono qaabka loo dhiso Amazon KDP Store iyo qaabka loo naqshaday buugaagta, oo waxaan ku bari doonaa qaabka markaasi Canva loogu diyaariyo buugaagta kadibna loogu publish gareeyo Amazon KDP hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Marka tan inta muuqaal mid kale mid ku kulmi doono waxaa kaaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.